culimada gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa bayaanada ka soo saaray ololaha ka socda dalka Soomaaliland iyadoo bayaankani khuseeyo qaybaha dalka sida xukuumadda, komishanka doorashooyinka, xisbiyada dalka iyo waliba bulshaweynta waxaanay adkeeyeen in la qaato baaqooda. Sheekh Xasan Abukar Dhuuxyare ayaa akhriyay go'aamadaasi iyagoo qaar ka mid ah culimadu iyana halka ka hadlay. koobaad culimada gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan kuna xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ilaaliso hawlaha ugu muhiimsan waxa loo igmaday oo ah danaha ummadda iyo mid diineedba. si gaar ah culimadu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inuu ka qaato ilaalinta diinta iyo dalkaba dowrka ugu habboon ee uu ku leeyahay. qodobka labaad culimada gobolka Togdheer waxay nasiib darro iyo wax laga xumaado u arkaan in xubno ka mid ah xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo yeedho in dalku yahay dimuqraadi. qodobka saddexaad culimadu waxay cod dheer ku sheegayaan in dadka iyo dalkuba yihiin muslimiin dastuurka dalka u yaalaana yahay mid waafaqsan diinta islaamka sida ku cad qodobka shanaad. islaamka iyo dimuqraadiyaduna waa laba mabda oo aan sinaba u kulmi karin. afar culimadu waxay cadeynaysaa in heesaha iyo muusiga wada socda iswata xaraan ku yihiin shariicada islaamka dhammaan culimaduna isku waafaqsan yihiin. shan culimada waxay ku hambalyeynayaan kuna taageerayaan komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamadii ugu dambeeyay ay ka soo saareen arrimaha ololaha iyo anshaxumada iyo anshaxa. culimada waxaa si wada jira ay ugu baaqayaan komishanka doorashooyinka qaranka iyo madaxda ammaanku inay xil iska saaraan dhaqangelinta iyo meelmarinta go'aamada laga soo saaray ilaalinta anshaxa suuban iyo ku dhaqanka diinta. toddoba culimadu waxay asxaabta qaranka ugu baaqayaan inay u turaan ummadda iyo bulshada ay codka ka doonayaan kana waantoobaan kelmadaha xambaarsan kicinta iyo qabyaaladda isla markaana ay dhowraan diinta iyo dhaqanka bulshada. sideed culimadu waxay ugu baaqayaan xisbiyada qaranka in aan bulshada cod lagaga doonin xumaan iyo waxyeeleynta anshaxa ummadda taa beddelkeeda ay ku ay doonaan kasbashada iyo kalsoonida shacabka. sagaal culimada waxay guud ahaan ugu baaqaysaa bulshada weynta Soomaaliland ilaalinta diinta dhaqanka suuban amniga iyo wadajirka ummadda. si gaar ah waxaan ugu waaninaynaa waalidiinta iyo waxgaradku inay gutaan waajibaadka ka saaran dadka ay mas'uulka ka yihiin. 10 culimada gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan guud ahaan culimada dalka inaanay ku ololeyn kagana qayb qaadan xisbiyada magac culimo kuna koobnaadaan dowrkooda dhexdhexaadnimo iyo culimanimo. 11 culimadu waxay ugu baaqayaan dhammaan madax dhaqameedka dalka sida salaadiinta iyo cuqaasha inaanay ku milmin arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan hawlaha dhaqanka maadaama ay yihiin mustaqbalka ummadda. 12 culimadu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda, musharixiinta, madax dhaqameedka iyo dhammaan bulshaweynta inay ilaaliyaan amniga wax kasta oo waxyeelayana ka dheeraadaan. 13 ugu dambeyn culimadu gobolka Togdheer waxay ummadda ugu baaqayaan alla ka cabsi iyo inay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni karaya ara iyo ciqaab rabbi. dadka tartamaya ilaahay baa kii heli doona, ilaahay baa u sii qoray walba inaad u marto oo kullu shay aad u marto si aad u gaadho halka aad adigu doonayso. inaad tiraahdo maanta halkan diinta ii yara dhig oo dhaqanka wanaagsan halkan ii dhig kursigana aan gaadho dhaqankii wanaagsanaa waxaan wax ka qaban doonaa markaan meesha gaadhay aan tagan wax ka qaban doonaa taana laguma banaynine wanaag ku gaadh baa lagu leeyahay oo wasiiladaadi ha wanaagsanaato. oo afkeena aynu ka cabirayno dimuqraadi baanu nahay ama aanu markaa ku baaqaynaa. culimaduna sida bayaankeeda ku cad ay yidhaahdeen iyada iyo diini meel wada geli mayso waayo dimuqraadiyaddu waxa weeye xukunka alle malaha ee shacabka iska leh. shacabku wixii uu doono ee uu ku raali yahay baa lagu dhaqayaa hadday tahay wax shareecada khilaafsan iyo hadday tahay wax waafaqsan waa hawadooda la raacayaa shacabka. innagana dad muslimaynu naho markaynu isdhiibnay ee sharciga islaamka raacanay waxaynu ka dariiq dhiganay dariiqa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inooga raali yahay nabigeenu inoogu yeedhay sallallahu alayhi wasallam. haweeye dadka waxa ugu liitaa baa la yiri ugu nacasaysa faqad diinahu bidunya ghayrihi ninka aakhiradiisa ku waada adiyo ninka leeyahay ku waada. marka arinta inaga dhaxaysa doonta aan wada saaranahay ayaynu u baahannahay inaynu wada ilaashano oo aanay doontaas inala degin oo wixiina dejinayana aynu iska qabanno wixii doonteena aynu wada saaranahay dejinayo inaynu iska qabanno. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.